sida uu ballan qaaday madaxweyne William Ruto waxaa miiska la soo saaray shaqooyin macalinimo oo kor u dhaafaya ilaa iyo 35,000 kuwaasi oo isugu jira kuwa abadi ah ama permanent iyo kuwa shaqo barasho ku meel gaar ama internship ah. ururka shaqaaleysiinta macallimiinta ee TSC ayaa hawshan u xil saaran inay u kala qaybiyaan countiyada kala duwan ee dalka. haddaba waxaynu fiirin doonaa qaabka ay TSC u gacan bidixeeyeen countiyada muslimiinta iyo si gaar ah waqooyi bari. waxaa la yaab ah in TSC ay go'aansadeen in gobolka waqooyi bari oo dadka deegaan ahaan u leh 100% ay yihiin wada muslimiin in ay siiyeen macallimiin baromaadada IRE-da oo ah tacliinta islaamiga ah oo aanan kor u dhaafaynin 10 macallin isku darka saddexda county, halka marka kuwa carabiga baro lagu darana ay gaarayaan ilaa iyo 16 macallin oo kaliya. taasi beddelkeeda waxa ay soo dhoobeen in ka badan 170 macallin oo bara maadada CRE-da oo ah tacliinta masiixiga ama kristiyaanka, iyada oo marka lagu daro countiyada kale ee muslimiinta tiradaasi ay sare u kacayso ayna gaarayso ilaa iyo 238. arrintan iyada ah waxaa guddiga tacliinta u xil saaran baarlamaanka ay su'aalo ka weydiiyeen madaxa fulinta ee ururka macallimiinta ee dalka TSC Nancy Macharia. taas iyada ah oo sheegtay in arrintan dib loo fiirin doono, isla markaasina waxa ay ku gabatay in marka hore arrintan iyada ah aanan loogu dan lahayn in gobolada waqooyi bari iyo sidoo kale kuwa muslimiinta aanan lagu riixin. waxaa kale oo intaasi ay ku dartay in baarlamaanka aysan shaqo ku lahayn in arrintan iyada ah ee shaqaaleysiinta macallimiinta ay soo farageliyaan. Nancy Macharia marar badan waxaa lagu eedeeyey in ay gacan bidixayso gobolka waqooyi bari tacliintiisa, iyada oo mid ka mid ah wakiilada deegaanka ee hadda lagana soo doortay wardka Baraki Xasan Geley uu sheegay in gobolka waqooyi bari inkaarta waxbarashada ee haysato ay tahay ururka macallimiinta shaqaaleysiye ee TSC. ma ahan markii ugu horeysay ee TSC ay qaado tallaabo u muuqato gacan bidixayn ka dhan ah waqooyi bari, sida in macallimiinta aanan gobolka u dhalanin lagu amro inay halkaasi ka soo tagaan sanado ka hor sababo ay ku sheegeen in xaaladaha amniga ay la xiriireen. haddana waxa ay u muuqdaan in isla iyagii ay gobolka waqooyi bari geynayaan macallimiin aan halkaasi u dhalan ama markaasi aan halkaasi ka soo jeedin, maadaama aysan jirin macallin muslim ah oo barayo maadada CRE-da.